deegaanka la yiraahdo Puntland waa deegaan Soomaaliyeed hadda ka horna waa ka hadlay dad macna badan dawladda macna u leh taariikh fog oo maxaan ku raad dawladnimo leh yaa degan waxaan rabaa inaan sheego raali kama ahin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raali kama ahin laakiin ifafaalayaasha muuqda wadada aan soo marno sheegay mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka talaabsanina kama talaabsan kartiin aad iyo aad ugu dhaga nuglaada oo dhageysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xoogan yahay oo siyaasiyiin maahir ah oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta hala dhageysto odayaasha dhaqanka hala dhageysto ka bacdi dawladnimadu siday maamulka iyo dawladnimadu siday u adkaanayaan hala yeelo ka tala bixi maayaan waa huba kuna talin maayaan odayaasha dhaqanka deegaankaas joogay wax dawladda Puntland duminaayo ma ku talinayaan nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka ka soo jeeda ee deegaanka madax ka noqday dalkana madax ka noqday Soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha wax dadka dan u ah iyaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhaga nuglaada dadka dhageysta wax garadka in dheer garadka dhageysta dad fiican mas'uuliyadda yaqaano xikmad dawladnimo leh ayaa deegaanka ku nool ee hala dhageystaan leenahay hadday yihiin odayaal dhaqan iyo hadday yihiin siyaasiyiin intaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahmaa oo la isla qaataa Puntland markii ugu horeysay oo doorasho qof iyo codal laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raali ka ahayn in la mariyo waana la mari waayay hadda ka hor haddana ma marayso dadka haddaanay raali ka ahayn dadka haddaanay raali ka ahayn ma marayso yaan dadka reer Puntland dhibaato gaarin magac iyo sharaf iyo haybaday leeyihiin yaanay ka dhimanin oo haybadu ka dhumin oo dad aan waxba garanay isdilayo aanay u ekaanin siyaasiyiintan leeh ka jooga ayeelinina maamulkan leeh talada haya maanta ka jooga ayeelinina odayaasha dhaqanka siyaasiyiintan leeh waxa maslaxadda ummadda ah ka taliya weligiin baad ka soo tali jirteen waxa ciidamada difaaca Puntland ay ka fuliyeen howlgal qorshaysan magaalada Gaalkacyo taasoo looga howlgalay xere halka ku taal oo muddadii u dambeysay dawladda federaalka ay ku soo daabuleysay hub iyo saanad iyo ciidan ay ugu tala gashay inay ku khalkhal geliso amniga iyo xasiloonida Puntland waxaan marar badan la wadaagnay dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka jecel ka shaqeynta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliyaba falalka ka socda madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ku khalkhal-gelinayo kala dambeynta iyo nabadgelyada yar ee tukubaysay ee Soomaaliya ka jirta guud ahaan iyo gaar ahaan nabadgelyada muddada dheer ka jirtay deegaanada ay ka mid yihiin Puntland oo ahaa meel muddo xasiloona wuxuu ka shaqeynayay sidii uu khalkhal amni u abuuri lahaa isaga oo dad dana gaar ah leh ay ku been abuurteen dadka iyo dhalinyarada reer Puntland khalkhalna ku geliyeen iyo kuwo laga keenay deegaano kale oo magaalada Muqdisho ah oo muhiimadeedu ay tahay in Puntland oo mar walba u taagan nidaamka dawliga ah iyo ilaalintiisa iyo federaalnimada in laga dhigo meel aan kala dambeyn ka jirin oo dawladnimo ka jirin si
dowrka ay ku leedahay dowlad dhiska ay meesha uga baxo dalkan uu ku noqdo gacan aan habboonayn oo si guracan loo maamulay. wuxuu mararka qaarkood ku beer laxawsanayay inuu ciidamo dowladda federaalka halkaa ku abuuray. ciidamada Puntland waa ciidamo Soomaaliyeed ee la dagaalama argagixisada, burcadbadeeda, dib u soo celinta dowladnimada ee ka fuliyay deegaano badan oo koonfurta Soomaaliya ah ilaa ay qayb ka noqdeen in filadii Soomaaliya dib loogu soo celiyo maamulka dowladda oo ilaa iyo maanta ka arrimiya. ciidankaas waxaa maamulaya dowladda Puntland, waxa ay mar walba u taagneed qaranka iyo dhismihiisa. ciidan meel kale ka imaanayo oo runtii maamul kale uu maamulayo maanta suuragal kama aha Puntland inuu ka jiro. Puntland waxay muddadan ka shaqeynaysay dowlad dhiska, qodobada aasaasiga oo dadka Soomaaliyeed u dhiman inay qayb ka qaadato, iyadoo markaas uu noqon doono dalku sida dastuurka ku qoran ciidanka difaaca Soomaaliya oo mid noqon doono ama National Army. waxaan uga mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee difaaca Puntland oo ka howlgala dhammaan geyiga Puntland, oo la dagaalamay Daacish, oo la dagaalamay Al-Shabaab, oo mar walba u taagan xasilinta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland. waxaan runtii uga mahad celinayaa sareeyaasha iyo hogaamiyaasha ciidanka taliyaashooda sida habsamida leh ay kala dambeynta iyo dowladnimada u ilaaliyeen, siday howlgalka u qorsheeyeen, sida ay ugu guuleysteen in ay dowladda Puntland gacanteeda ku soo celiyaan xeradaas oo ahayd xero dowladda Puntland ay maamusho laakiin muddadii u dambeysay ka shaqeynaysay nidaam khaldan. waxaan uga mahad celinayaa shacabka reer Puntland meel kastay joogaan isgarabtaagga ciidankooda iyo go'aanada dowladda sida ay u fuliyeen. waxaan sidoo kaleeto ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa halka uga soo jeedinaya ama faraya inay xasiloonida ilaaliyaan, in dhaawaca la daryeelo, in maxaabiista si fiican loola dhaqmo, in aan wax khalkhal ku saabsan ama tacaddi ah loo geysan guud ahaan dhalinyaradaas la khalday halkaas lagu qabtay. waxaan sidoo kaleeto halka baaq ugu soo jeedinayaa dhammaan dhalinyarada kaleeto ee gobollada Puntland jooga ee nidaamka ku jiray warqadaha beenta iyo biometriga beenta ah laga buuxiyey ku andacoonayeen inay federaal ka tirsan yihiin. Puntland ciidanka jooga waa ciidanka Puntland maanta, ciidan kale oo ka jira ma jiraan. waxaan rabaa dhalinyaradaas inay ciidamada dowladda Puntland ka mid noqdaan, isu soo dhiibaan, nidaamka dowliga ah raacaan. ciddii ka dhaga adeegta jawaabahaas la mid ay helaysaa. waxaan rajaynayaa inay saraakiishuna ka shaqayso meelaha ay ku sugan yihiin oo dhanna ay ciidamada dowladda la shaqeeyaan siday horeba ula shaqayn jireen. ciddii aan ciidan ahayn oo ciidan aan rabin danaheedii ay qabsan jirta ha qabsato. Puntland waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliya, dowladnimada Soomaaliya waxay adkeynaysaa nidaamka dowliga curdinka ah, waxay hormuud u tahay nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliyeed ugu dabaali doono. waxaan ku faraxsannahay nidaamka Puntland inuu yahay midka maanta dowladaha kale ee xubnaha ka dowladda federaalka saldhigga u ahaa gacan qabatay, dhismahooda qayb ka qaadatay, shuruucdooda iyo dhismahooda dowladnimada ay qayb ka qaadatay, meelaha ay ku tababartaan ka ahayd haddana sidii baan ugu taagannahay. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dowladda Galmudug oo runtii muddadii anigu aan xilka hayay wada shaqayn wanaagsan aan wada lahayn, amniga ka wada shaqaynay, xasiloonida ka wada shaqaynay. ciidanka labada dhinac Galmudug iyo Puntland ay si midaysan uga wada shaqayn jireen, sidii gaar ahaan gobolka Mudug oo gobol runtii xudun u ah Soomaaliya, meel xasaasi ku yaal, laba maamul dhexdooda ah, sida taariikhda ah ay ugu guuleysteen in nidaamka federaaligu uu yahay wax dadka kala qaybiya, sida dadka ugu candocoodaan. waxaa daliil u ah magaalada Gaalkacyo oo laba maamul oo state ay ka jiraan oo haddana wada nool. federaalnimadu dadka ma kala qaybiso, dadka isku soo dhaweysaa, wada shaqayn bay leeyihiin, shuruuc baa dadka kala xukunta, wada shaqayn bay leeyihiin, amnigay ka wada shaqaynayaan, horumarkay wada shaqaynayaan, dhinaca bulshada ka shaqaynayaan. fariinteennu waxa weeye fariin walaalnimo, Soomaali meel kastay joogto, cidna inaan ku xadgudubno ma rabno, laakiin nidaamka hadda Muqdisho ka jira waqtigiisa dhamaaday sharcina kuma fadhiyo. waxa uu hadda waxaan u sameynayana waa inuu sharci darradiisa uu qiil uga dhigaa oo aan laga hadal
oo dadka uu khalkhal geliyaa oo madaxda uu weeraraa oo magaalooyinka degan uu yiraahdaa khalalaasaan ka ridaya oo waxaan jirin uu ka shaqeeyo. waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waa siyaasi Soomaaliyeed dalkan 2 mar madaxweyne ka soo noqday. waxaan leeyahay khaatimadaada ha ku dhamayn wada xun, dadkaaga u soo noqo, talada la wadaag. ilaahay baa macsuuma, qofku waa khaldanaa. waxaan kuu soo jeedin lahaa tala midaysan oo Soomaaliyeed gaar. haddaad wanaag aad martidna Soomaali wanaag bay kuwa haynaysaa. xumaanta faraha badan oo hore u soo gashana haddaad tan ku sii dartid hadda mid aan la ilaawin bay noqon doontaa. bal intii hore u gashay intaa sharciga ahayd haba laga wada xaajoodo oo Soomaaliya u taala, laakiin inta aan sharci darrada ah ku samaysid ogow waa mid ka duunaan doonta kuwa sharciga marka ahayd aad samaysid. taladeedu waxa weeye gaar ahaan gobolka Mudug, Galmudug iyo Puntland inay si midaysan nabadgelyada uga wada shaqeeyaan. waxaan ka mahad celinayaa tallaabadii shalay ay qaadeen ciidamada iyo maamulka Galmudug oo diiday inay qayb ka noqdaan dhibaatada lagu hayo Puntland. sidaas oo kale aan ballan qaadeenna horena u ballan qaadnay ayna ogyihiin inaan dhibaato uga imaan Puntland Galmudug, inay cadowga ay leedahay gacan ka siiso, inay darisnimada iyo walaalnimada ay sii xoojiso, in wax kasta oo iyagu ay goostaan aan kula shaqayn doono haddii Ilaahay idmo. arrimahooda daakhiliga ah maamuleed dadkeeda iska leh, laakiin annaga waxay nooga tashanayaan mar walba waxa ay taladoodu tahay inaan gacan ku siino. inta yar oo mar walba rabta inay xumayso waxaan rajaynayaa inay meel uga soo wada jeestaan, ammaanka wada ilaaliyaan. waxaan fariinteeda ugu dambaysa ku celinayaa in dadka arrimahaas ku lugta leh ee gobollada kale ee Puntlandna jooga inta aanan tallaabo laga qaadin inay u degdegaan awaamiirta dowladda. saraakiisha dowladda ee deegaanada ay joogaan way is yaqaanaane ay la xiriiraan inay dowladooda qayb ka noqdaan. beenta iyo huhaada la falkinayay niman siyaasiyiina oo damac guracan leh oo dadka reer Puntland ah waxaan u soo jeedinayaa ninkii dadkan damac kale siyaasadeed dadka ha u yimaado siyaasad qoriyeysan oo ciidanaysan suuragal maaha dalkan in looga gaaro. ciidanka dowladda Puntland iyo ciidanka Soomaaliyeedba waa ciidan shacabka Soomaaliyeed leeyihiin. wax sharci ah oo xaq ah oo bay ka shaqeeyaan, wax qof ah kama shaqeyn karaan. dowlad ku hoos noolaan kartaa ma jirto. maamulka dowladda Puntland waa mid, hay-adihiisa dowliga ahna waa mid, dadkiisuna waa mid. ciddii isku dayda inay waxaan jirin ka shaqayso intii loo dulqaadan kara waa loo dulqaatay, laakiin ciidamadu iyagoo ku howlan inay calmiskaad nafur ka sameeyaan oo buuraha galgala ay wax 15 sano ka badan ay dul saaran yihiin oo bacadka iyo qabowga iyo dhaxanta iyo cimilo isbedeshay mararka kuleylka ay u joogaan, suuragal ma noqon karto in guryahooda iyo xaasaskii iyo dhulkii deganaa loo dabamaro dana yar oo raqiis lagu bedesho dadkana wax la yeelo. fariinta maanta dhacday waxaan ugu hambalyeeynaya shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ciidamada geesiyaasha ah ee difaaca dowladda Puntland qaybihiisa kala duwan oo dhan, taliyaha guud ciidamada difaaca Puntland, taliyaha booliiska, saraakiisha kale ee dowladda ee hogaaminaysa hawshaas, askartii ka qayb qaadatay, waxgaradkii iyo waayeelkii iyo maamulkii gobolka Mudug iyo dhammaan mas'uuliyiinta Puntland ee arrintaas sida turxaanta yar oo kooban ku soo afjartay. taas baa insha allahu tacaala mahad ilaahay ugu celinaynaa. ilaahay ka sokowna dadkii hawshaas qabtay oo qorsheeyey waan u mahad celinaynaa. ilaahay idankiis wiilasha dhalinyarada ee la siray ee qaar maxaabiista hadda yihiin, qaar dhaawac yihiin, waxaan rajaynayaa dadkiinni baa la joogtaan, ehelkiin baa la joogtaan, walwalyuuna ina gelin. ilaahay idankiis bulshadiina ka mid noqon doontaan, meelaha aad jeceshiin baad ka shaqayn doontaan. wax mushkila ah ma jirto, laakiin dowladdu waajibkeeda u saaran tahay waxa weeye nidaamka inay ilaaliso. dadka horena waa u sheegay, dadka ku celcelinaya nin walba inuu meel dhigto dad oo qabaa'il baa nahay waa reer hebel. maanta 28 sano ay Puntland joogtaa, qabaa'ilka reer Puntland oo dhan baa dowladdan harsanaya. cid si gaar ah ahmiyad gaar ah oo kuwa kale aan lahayn leh ma jirto, cid sharciga ka weyn ma jirto. waxaan rabaa cid walba inay sharciga Puntland harsato, cadaalad ku dhex raadiso, wixii khaldanna ay wadada sharciga u marto. ciday ka cabanayso hadday maxkamadaha ku kala baxayso iyo hadday golayaasha kale dowladda ay sameynayso.
laakiin cid meel kale cid uga amar taagleynayso oo weliba cid aan sharci lahayn dhahaysa awaamiir bay siinaysaa yaa lagu hungoobin. madaxda federaalkana waxaan oran lahaa inay joojiso hubkii lagula dagaalami lahaa cadowga al-shabaab inay soomaalida dhexdeeda isugu dhiibto oo waxaas ka shaqayso oo kuwii u dambeeyey shalay ay ahaayeen intaa ku ekaada. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.